qaab hadalka jirkaaga. Waxaa laga fahmaa arrimo ka badan hadalka afkaaga ka soo baxaya. Waa arrin muhiim u ah xiriirka kala dhexeeya dadka kale, sababtoo ah shucuurta ugu badan waxay ku xiran yihiin dhaqaaqa jirka. Haddaba, marka aad dad kale la xiriirayso ama la fadhido, waxaan sheegnaa wax ka badan ereyada afkeena ka soo baxaya. Ma ahan waxaan dhahayno xaqiiqdii, balse waa sida aan dareemayno marka aan hadalkaasi dhahayno. Way adag tahay in laga hadlo waxa dareenka qalbiga uu yahay, waana sababta aan shucuurteeda ugu muujinno dhaqaajinta jirkeena iyo jir hadalka. Arrintaas waxa laga ogaan karaa sida inta badan aad u fadhiisato iyo qaabka ay lugahaaga yihiin, waxayna la xiriiraysaa waxa aad dareemayso iyo shucuurtaada guud. Haddaba, sidee inta badan u fadhiisataa? Wax badan oo shakhsiyadaada ku saabsan ayaa halkaas lagu ogaan karaa. Haddaba ila soco. Dadka sidan u fadhiista waa kuwo hal abuur leh, waa dad isku filan oo si degdeg ah go'aan u gaara, waqti badanna uma baahna. Arrintan waxay sababi kartaa dhibaato mararka qaar, balse qaabkooda degan ayaa ka caawinaya inay ka gudbaan xaaladaha cakiran. Waa dad nolosha u arka khibrad, waa dad caan ah oo saaxiibo badan leh. Inkastoo xiriirkoodu u badan yahay mid sabeynaya, dadka qaabkan u fadhiista waa kuwo hami weyn leh. Waxay aad ugu wanaagsan yihiin fikirka iyo mala-awaalka, waxayna isku arki karaan iyagoo maalintii xitaa riyoonaya oo wax ku haminaya. Waa kuwo qalbi wanaagsan oo dadka si fudud ula saaxiibi kara, balse mararka qaar ayay isqariyaan. Waa dad dhegeysiga ku wanaagsan oo og waxa ay qalbiga ka dareemayaan. Qaab fadhiga C waa dad rabsho badan oo dhib badan ku qaba inay wax si wanaagsan diiradda u saaraan iyo inay feejignaadaan. Waa dad ay maskaxdoodu dhaqaaqayso oo hadla ka hor inta aysan ka fikirin saameynta uu hadalkoodu yeelan karo. Waa caajislooyaal aan waxba dareensaneen. Waxay ku wanaagsan yihiin meelaha ay xaaladoodu kacsan tahay. Xiriirka marka laga eego, si degdeg ah ayay ku xiiso dhacaan, waxayna u baahan yihiin qof sii riixa oo dhiirigeliya. Qaab fadhiga D waa dad inta badan aad u aqli badan, si wanaagsan u fikira. Waa kuwo waqtiga ilaaliya, nadaafad badan oo wax kastana sidooda ka dhiga. Xitaa gurigooda waa meel isku toosan oo nadiif ah, maryo meel daadsan ama isku dhex yaacsan kuma arkaysid. Waa dad xirxiran oo aan si degdeg ah lagu ogaan karin waxa noloshooda ku saabsan. Waana dad daacad ah, mana jecla xanta. Waa dad degan oo wanaagga arka. Qaab fadhiga E waa dad ujeedo fog leh oo aad u qiimeeya xirfadooda, waxayna muhiimadda saaraan sidii ay ula imaan lahaayeen ujeedo macquul ah oo waxtar u leh noloshooda. Si shakhsi ah iyo si guudba, waxay jecel yihiin in yool iyo wax la tiigsanayo ay jiraan. Tusaale ahaan, marka caafimaadka iyo jaceylka laga hadlayo, yoolkoodu wuu cad yahay. Waa kuwo jecel in ay wax kasta ay dhammaystirmaan. Taas waxay mararka qaarkood ku qasabtaa inay arki waayaan waxa ay haystaan, ayna raadiyaan wax dheeraad ah. Haddaba daawade, afartaas gruub adigu gruubkee ayaad ku jirtaa?